fadlan subscribe channelka si aad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aan soo gelin doono. share garee si aad asxaabtaada u arkaan, like saas si ay dhiirigelin inoogu noqoto. mahadsanid. toban faa'iido oo laga helo geedka timirta. Geedkani timirta waxa uu ka baxaa dhulka kulaylaha ah. Timirtu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan, waxayna caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jirka aadanaha. Faa'iidooyinka geedkani lama soo koobi karo, balse waxaan soo qaadan doonaa waxyaabaha ugu caansan oo laga helo. Nambarka 1, timirtu waxa ay yareysaa heerka kolestaroolka dhiigga sababtoo ah waxaa ku jira maado loo yaqaan pectin. Nambarka 2, timirtu waxa ay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxayna ka ilaalisaa baabasiirta, waxayna yareysaa dhagaxaanta ku dhasha kaadiheysta. Faa'iidada 3, waxay ka joojisaa ilkaha inuu suus galo sababtoo ah waxaa ku jira maado la yiraahdo fluoride. Faa'iidada 4, waxay jirka ka ilaalisaa sunta, waayo waxaa ku jira maadooyinka kala ah sodium, potassium iyo weliba vitamin C. Waxay daaweysaa dhiig la'aanta, waayo waxaa ku jira maadooyinka kala ah iron, copper iyo weliba vitamin B2. Waxay daaweysaa jiljileeca lafaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka kala ah calcium, phosphorus iyo weliba vitamin A. Faa'iidada 7 oo laga helo geedka timirta, waxay daaweysaa amateed la'aanta sababtoo ah waxaa ku jira maado loo yaqaan potassium. Faa'iidada 8, waxay daaweysaa itaal darida guud ahaan iyo wadne xanuunka, waayo waxaa ku jira maadooyinka kala ah magnesium iyo weliba copper. Waxaa ku jira maadada selenium oo looga hortago kansarka. Faa'iidada 10 ee ugu dambeeya, waxay daawo u tahay jirka iyo indhaha, waayo waxaa ku jira maado lagu magacaabo vitamin A. Timirtu waxaa loo adeegsadaa cunno ahaan iyo daawo ahaanba. Halkaasina waxaa inooga dhan faa'iidooyinka laga helo timirta.